TV Furisia waddanka Talyaaniga ee magaalada Firenze warka jirnaa sheeg maanta waxaan soo qaadanaa bishay tahay 24 bishii 8 2022 warka jirnaa sheeg waxaan rabaa inaan ku soo qaato dhibaatooyinka beesha mudulood 5 sano iyo 3 bilood ay ka soo gudubtay si wanaagsan ee dadnimo ku jirtana uga soo dagaalantay hadday tahay tan qurbaha joogtay hadday tahay tan gudaha ku nool waxa loo baahan yahay wali dagaalkii aan waqtigaas soo qaadnay aan u qaadnay inaan badbaadino dadkeena inuu wali taagan yahay yaan loo qaadanin in madaxweynaha maanta meesha saaran mase xasan sheekh maxamuud oo naga soo jeeda annaga oo wax noo qabanayo oo wax noo tiraayo annaga markaan dagaalameynay cid aan ku tashanayni ma jirin waxaan ku tashanayni ilaahaygeena abuurtay iyo in xaqa iyo xuquuqda aan leenahay inaan u dagaalano maadaama qowmiyadaha kale ee Soomaaliya ay haystaan xaqooda iyo xuquuqdooda annaga waxaan nahay cid la kordegan yahay annaga waxaan nahay cidda Soomaaliya maanta isku hayso annaga waxaan nahay dadka martida loo yahay annaga waxaan nahay dad is iyo sharaf ummadda ku ilaaliyo laakiin Soomaalida taas ma taqaano ay waxay taqaanaa in la uleeyo ninka iska dhiciyo ay nin u taqaanaa annaga Soomaalida way nagu sirmayaan waxay nagu sirmayaan wax waaye annaga waxaan nahay dad deganaashada ay ka badatay annaga waxaan nahay dad dhibaatada neceb annaga waxaan nahay dad diinta muslimka ay haystaan ku ilaaliyo ku sharaf ilaaliyo ummadda la degto mase ummadda la degan annaga ma nihi dadka ku xadgudbo dadka laakiin markiina lagu xadgudbo waxaan naqaanaa in aan meel iska saarna cid alle ciddii nagu xadgudubto maanta tan waxaan uga hadlay waxa waaye xasan sheekh maxamuud wuxuu madaxweyne yahay siday ila tahay 10 biri mase 15 biri ayaa ka hartay mase 20 biri ayaa ka hartay boqolkiisii maalmood ilaa haddana inaan dhibaato ka dhaxalna maahane weli wax qeyr oo aan ka aragnay habeeraatay ma jirto waan ognahay xasan wuxuu u haystaa hadduu xaqa iyo xuquuqda aan leenahay oo na siiyo in la leeyahay beeshiisii ayuu wax siiyey xasan si uu nooga fogaado warbaahinta mase social media waxaa laga sheegaa ayaa laga hadlaa sempre mar kasta laga hadlaa in uu qabiilkiisa wax siiyo inuu qabiilkiisa wax taro annaga horena waan u sheegnay haddana waa sheegaynaa annaga xasan qabiilka uu asiga ka dhashay ayaan ka dhalanay ilaa haddana wax qeyr aan ku haysana male annaga ma ka rabna xasan inuuna siiyo xaqu naas annaga ma nihi dad u doodo xaqa dadka ay leeyihiin laakiin waxaan nahay dad xaqooda la dhaco hadday u qayliyaanna loo arko inay khaldan yihiin oo lagu yiraahdo unugaa iska leh sidii muqdisho inay cirka ka soo dhacday mase dhulka ay ka soo baxday muqdisho markii la imaanayay dad ayaa deganaa dadka degan waa lagu rasbataarayaa adduunka oo dhan ayay taas ka jirtaa marka waxa waaye maanta mudulood waxaan oo la hadlaya wax waaye annaga maadaama xasan oo naga dhashay annaga xasan kama rabno qabiil ahaan inuu wax noo siiyo annaga xasan waxaan ka rabnaa xaqa Soomaalida ay leedahay ay qaadanayso oo qabaa'ilada la siinayo inuu na siiyo oo kaliya waxaa kaloo meeshaan ku jiro aan leeska yeeli doonin aan xasan aan ka yeeli doonin annaga magaalada muqdisho inaan nalagu xukumo nalagu dilo nalagu xiro qoryaha nalaga furto nala yiraahdo waa ciyaal weero waaye musiibo oo dhan oo soo aruuriyo annaga dushana laga saaro iyadoo loo jeedo cidda dhibaatada wado waxaan rabaa beesha mudulood inaan u tilmaamo aan tuso 3 bilood oo 15 biri dhiman mase 10 biri dhiman oo xasan sheekh madaxweynaha uu yahay waddankan maxaa ka dhacay haddaan idin sheego dilka iyo markaan ka tagno waddankan social media completamente
siday u badan tahay waxaa la wareegay maxamed cabdullaahi farmaajo iyo Fahad Yaasiin lacagihii ay waddankan ka dhaceen ayay haystaan lacagihii loo aruurinayay ayay haystaan lacagihii maxamed cabdullaahi farmaajo guriga loogu dhisay la dhahay halkee ku dambeysay lacagahaas oo dhan waxaa lagu dhisay ilaa 15 TV midkaan galsoor la leeyahay wuxuu sheegay aan la garanaynin oo wax hore iska soo qaadanayo oo dadka isku diraayo oo waxaan meesha oo la sheegayo iyo boqolaal kale oo asigoo kale ayaa la sameeyay waxaan ku yiri waxaa la sameeyay oo kale Snapchat la sameeyay waxaa lagu soo qaataa maxalla TikTok lagu soo qaataa wixii oo dhan waa la siyaasadeeyay wixii oo dhan maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa shaashada saaran social media kasto oo Soomaali ah maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa shaashada saaran xasan sheekh maxamuud halkoo ka baxay waddanka asaa madaxweyne ka aawo ninkii loo dhiibay oo laga dhigay loo dhiibay maxaa la dhahay booskii Fahad Yaasiin niisa ninkii loo dhiibay mahad salaad oo marka hore laga sii xakarin oo laga jiifo waayey oo dagaalama jiray oo raganimo ku jirtay oo waxaan ku iri maalin kasta soo taagnaay hadda intoo ka baxay annaga waxaan leenahay sida loo hadda ay wax u socdaan waa si qaldan marka midda idin sheegay wax waay aan maanta inaan ka hadla aan rabo oo soo hadalkan oo qoomiyada aan soo qaatay wax waaye war qoomiyada shalay iyadoo dhulka taalo oo rag ay faraha ku haystaan ay ku listaan ay macnaa inay sac ku irmaaneysteen ay ku listaan ay maxamed cabdullaahi farmaajo u listaan ayaa dadka dibadda joogo oo isxilqaamay ay soo kacay kicitaankoodii wuxuu abuuray wax la yiraahdo qoomiyadda mudulood markaan ilaahay u raxmadee cali mahdi maxamed madaxweynaheena hore khayr allah siiyo ilaahay jannada firdaws allah ka waraabsho ayaa na gacan qabtay markaan u sheeganay talada iyo tugaada aan wadano inuu naga qabuulo taladii wuu naga qaaday taladii maanta beer kasta waa falnay miray dhashay mirihii inaan gurano kaliya ayaa loo baahan yahay haddii mirihii aan guro weynoona laga gurto haddana dhibaatadeeda leedahay laakiin hadalkayga xooggiisa waxaan rabay inaan kaga hadlo beesha mudulood inkasto oo waxyaalo badan oo naga buuxo ay naga dhex buuxayaan ee hadalka aan dhexgelayno aniga beesha mudulood mase qoomiyadda mudulood inaan hadalkan usoo gudbiyo waxaan rabaa qoomiyadda mudulood in aan annaga ku tashanin nin xasan sheekh la yiraahdo oo madaxweyne ah xasan sheekh ogaada madaxweyne wuxuu u yahay Soomaaliya oo dhan Soomaaliya la samanahay bas xasan sheekh waxaan ka rabnaa shabeellaha dhexe shalaas anaga dhiibay waa inuu noo soo celiyaa waxaan kaloo ka rabnaa Jubbaland xaq iyo xuquuqan ku leenahay ilaa turdaan degnaa maxamed muduloodaa jiro dhulkaasoo degaa shiiqaalaa jirto dhulkaasay degtaa annaga waa degnaa abgaal ah wax aan ku leenahay habeeraatee ma jirto shabeellada hoose uu ku daray koonfur galbeed oo hadda usoo koonfur galbeed markii la siiyey waxay usoo xaqataagoysaa muqdisho anaga askara leedahay hadda wax kale iska dhaaf muqdishoay lahaatay marka waxaan rabnaa koonfur galbeed shabeellada hoose in laga soo gooyo oo meeshii ay ebel ka tirsaneed oo loo soo celiyay banaadir jowhar iyo muqdisho iyo marka dhulkaas oo banaadir la isku dhihi jiray waxaan rabnaa haddaan mudloodnahay in la soo celiyo hiiraan hala madax baneeyo haddii sideedaha u joogsato haddii meel raacaysa idaa iskale haddii meel raacayna idaa iskale madaxweyneyaal waa haysanaa annaga waxaan dhihi lahaa haddaan nahay qoomiyadda mudulood xasan sheekh maxamuud sidaan ula xisaabtanay aan ula xisaabtamaynay aan uga hornimid waa inaan uga hornimaadaa xasan sheekh haddii xaqa iyo xuquuqda aan leenahay uu keeni waayo xasan sheekh wax uu noo dooriyo maxamed cabdullaahi farmaajo habeenaatee ma jirto annaga muqdisho waxaan u rabnaa nidaam
oo shaqaynayo waxaan rabnaa boliis oo muqdisho oo annaga aan leenahay in la sameeyo dowladda federaalka horeyaan u sheegnay federaal waa dowladda federaalkeeda boliiskeeda ha samaysato laakiin ciidamada deegaanka muqdisho isteeshimadiisa wax kasto annaga ayaa u talneyna markii xaqaas la dhahayo laakiin ma aha meesha caasimad waa in la yiraahdo oo qof kasta u soo caaltaago inuu xamar jagal ka qabto xamar rag dada iskale dadkii iskale ayaa xaq u leeyahay wax ka qabtaan marka qoomiyadda Mudullood waxaan rabaa inaan ku adkeeyo in aan isdhiganin in aan naqano dad xaqooda iyo xuquuqdooda u dagaalamayo waa aragteen shalito maane 2-3 bil ka hor waa soo gudbiyay maanta adaan naftarkeeda soo gudbiyay shalay soo gudbiyay oo aan soo gudbiyay maanta soo gudbiyay anoo ka hadlayo shirkii ka dhacay qoomiyadda Mudullood macnaha ay ku qabteen xaruntooda ay ku qabteen beesha Habargudud ay ka qayb gashay waa soo daayay waad aragteen horumarkaas aan wadnaa waxaasoo dhan aan samaynay marka ma aha inaan isdhigano inaan seexano ma aha waxaa loo baahan yahay ninkaan la leeyahay oo madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud haddii oo wanaaga aan ka sugayno oo ummadda aan la qabno hadduu noo sameeyno nin fiican waaye hadduu noo sameeynina annaga afka shalay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aan ku bursanayni asina ku bursanayna hadduu la raali ka noqdo wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.